ambaye hawajiwezi. Sio kusema ya kwamba hizi magari ama hii program ya chakula itatosha kila mtu Wajir, lakini itasaidia kusaidia tu wale ambao hawajiwezi. Niko na furaha ya kwamba kusema county, serikali yetu ya county imetununulia bags 25,000 ya mchele, 25,000 bags ya mchele, 5,000 bags ya beans na 4,167 bags cartons ya oil. Mnajua serikali kuu imejiandaa, lakini ile imeleta ilikuwa 8,000 bags. Kama kaunti yetu inaleta 25 na serikali kuu imeleta 8, nafikiri hiyo lazima nirudi Nairobi tuulize swali mingi kutoka serikali yetu kuu, tuseme kama county government inaweza kuleta 25,000 bags, kwa nini sisi tunaleta 8,000 pekee? So nasema hongera kwa governor na wafanyikazi wake na wale walichaguliwa kutuwakilisha katika hii county, MCAs wetu. marxaladda maanta aan marayno wixii na qaboojin karo waxa weeyaan in aan roob madar khayr leh adilayad aan nasiyo. runtii waa la tacaabaysan yahay, waad ogsoontihiin, xoolihii way fariisan hayaan, bini'aadankii waa baahan yihiin, wax la cunaya lay. marka anaga county ahaan wixii tabartayno maan tari hayna in ay ku filneenna waan ogsoonnahay. insha allahu tacaala waxaana qaybaynaa national government ayadana in wixii keentay wax kusoo darto. hay-ado fara badan oo shaqayn haya runtii oo waxyaabo yar oo maaragtay badan qaban haya oo kullina ay maaragtay uun macaawinaad ay kamid tahay way jiraan. ayagana waxaan leenahay wixii tabartooduna ha qabtaano, aan ummadda badbaadinna wixii garan kahayn insha allahu tacaala. cunadan waxay ka kooban tahay 25,000 oo loor oo bariis ah oo kiiba uu yahay 25 kiilo, iyo 5,000 oo loor oo digir ah oo tiiba ay tahay 50 kiilo, iyo waxaa la socda 4,167 kartoon oo saliid ah. kartoon walbana aad ku jira 18 kiilo oo saliid ah. waa 3 jarkan oo min 6. raashinkan waxaan rabnaa in meel walba la geeyo oo dadku u baahan si loo kala daran yahay. dadka curyaamiinta, reeraha maaragtay mamooyinka ilmaha agoomaha korsanaayo, familiyaal waxaad arkaysaaba hooyo ababa aan lahayn oo caruur un agoomo ah oo rajo ah, dadka aada u xanuunsan oon maaragtay aan xarbisan karin, shaqatay karin, dadka xoolaha kasoo dhamaadeen magaalada kaska jooga, dadka waayeelka ah. raashinkan waxaa loo soo gaday maatada iyo masaakiinta. qofkii county government u shaqaynayo oo hawshan dhinac kaga jira oo lagu soo dacweeyay inuu raashin gatay, ballan waa shaqadan ka joojina. haddaba waa in sii sheegay, fadlan ha lagu sima raashinkan dadkii loogu tirigal. haddii county government u shaqaynayso oo dhowr koomanin oo baashaan la qaybinaya aad duurka soo bari, waxaad nagu leedahay night out allowanskaada waan ku siinaynaa. saas ma ayga waa Banin Xuseen, waxaan ka soo hadlayaa magaalada Wajir. bariga waxaa la furay oo la launch gareey cuntadaas oo ku saabsan ayn kasta. gafanaha waa u mahad celinay, mahad kasha iyo laabta ka soo goodo. wax badan aan sugayn, geel magaad ribma oo maaragtay 10 bilood sida inta aragtooda soo daala dhacayn, waxay dhaleen maanta ay bilowdeen. lacagtina waa ku xigtaa oo maaragtay shaqadana waa kala socon.
waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol hore u soco. magacaygu waa Nabadoon Muumin Xaamud oo ka mid ah odayaasha magaalada Wajeer. waxaan maanta hambalyo u diraa dowladda county-da ugu sareeya His Excellency Ahmed Abdullahi Jiir. waxaan leeyahay congratulation maadaama maanta la launch gareey raashinkii la keenay oo yeelay xarunta maxaan ku yiraahdaa zero botka yeelay maanta gawaarida lagu rari haya lana geynahay dadka masaakiinta iyadoon ogsoonay in abaara baana jiraan dadkana xoolihi ay dhaafeen dunyadii ay lahaayeen dhammaanba ay ka dhamaadeen. waxaa kaloon ogsoonahay iyadoo dowladda wili aynay helin budget ay wax ku iibis ayaas gafanaaga dadaalay oo laba jibaari dadaalkiisa oo maanta dadkiisa ka danqaday oo raashin u qaybin haya taasna waxaan u arkaa waa dadaal dheeri ah. waxa la yiraahdaa Salaad Gaarane waxaan u mahadnaqaynaa maanta oo goobjoog ka ahaynay inuu gafana xiriga ka gooy raashinka loo qaybin lahay 6 sub county Wajir waa mahadsan yahay gafanaha waxaasna soo gaarsiiyey waqtigii dhibaato loo qabay oo loo baahnaa raashinka asaga waa mahadsan yahay Wajeer maanta waxay ku jirtaa wixii la dhihi jiray maalin qad walaalka qoodi qof kastoo awood inaad si kaalmo ka geysta loo baahan yahay gafanaha waa mahadsan yahay waqti ku haboonaad soo gaarsiiyey cuntadii Wajeer saaka xiriga laga jaray waxaan u sheegaynaa dadka oo loo dhiibay raashinka lagu amaaneysteen inay ayagana si aamin u dhiibaan. Maxamed Ciise waxaan ku magac deenahay Maxamed Maruf gafanaha oo hambaleynaynaa waqtigii loo baahanay oo meeshii ugu xumeedeedan maanta joogna ummadda qatar ay ku jirto wixii hore waxay maanta joogto maanta arrinta meesha joogto barga ka xun wixii hore waa ku mahadsan gafanaha arrintan launchingka raashinka launchingari midda kale ninka mas'uulka oo xukuumadda haya wax waa keeni kara laakiin ummadda aas u keena waa inay noqoto ummad aamin ah oo ummadeeda u baqe oo ilaahay ugu baqe oo wadaninimo ugu baqe waa inay noqoto raashinka ama ha loo dhiibo chief ama water demonstrator ama town demonstrator ha loo dhiibo raashinka walaalayaal waxaa la joogaa waqtigii ay ummadda 99 loolays ay Soomaali ku maamaade la joogaa waqtigan qofkii keela qof loogu dhiibo waxaa loo baahan yahay qofka asaga ay oo lahay oo waajibkeeda lahay oo mudnay oo u gaajoonay in loo geeyo